بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal waxaynu ku bilaabaynaa hadalkeenna insha allahu tacaala magaca ilaahay allahaasoo naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba mahadda oo dhanna ilaahay bay u sugnaatay dhammaanteed isaga ayaana ah rabbiga barbaariyey caalamiinta isagaynu tala saaranaynaa isaga ayaynu weydiisanaynaa kaalmada iyo caawimada isaga ayaanan keliga caabudaynaa waxaan kaloo walaalayaal ku salinaynaa xabiibkeenni moxamed inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu korkiisa u yeelo naxariis iyo nabadgelyo isaga ehelkiisii saxaabadiisii iyo dhammaan dadka muslimiinta ahee raacday jidkiisii intaa wixii ka dambeeya walaalayaal waxaynu ka hadli doonaa taariikh ka mid ah ama qiso ka mid ah haweenkii wanaagsanaa ee khayrka badnaa ee ay fiican tahay in aynu ku dayanno hadda ka hor baynu kasoo warramnay haweenno farawar badan oo ilaahay subxaana wa tacaala qaar ka mid a uu ina faray inaynu ku dayanno kuwo kalena ay ka mid ahaayeen haweenkii iyo dumarkii siirada wanaagsanaa ee hormuudka u ahaa haweenka muslimaadka insha allahu tacaala walaalayaal maantana waxaynu ka hadli doonaa oo aynu wax ka taaban doonaa haweeney aada iyo aada baal dahaba kaga taallaa taariikhda muslimiinta iyo islaamkaba haweeneydani waxay xaas u ahayd nebi ka mida nebiyadii ilaahay gaar ahaan nebi ayuub calayhi salaam nebi ayuub oo ku caan ahaa maxay samirka iyo dulqaadashada waxaynu la soconnaa walaalayaal in nebi ayuub calayhi salaam la imtixaamay waagii hore wuxuu ahaa nin xoolo badan leh caruur badan ilaahay uu siiyey dad badan oo u adeego addoommo ah ayuu lahaa beero waaweyn ayuu lahaa muddo 70 sannadood ah ayuu ku dhex jiray nicmo iyo barako bashbash iyo barwaaqo laakiin mar keliya ayaa alle subxaanahu wa tacaala wuxuu doonay nebiga inuu imtixaamo maadaama imtixaankiisii koowaad ee hore inuu ilaahay uga shukri noqo nicmooyinka la siiyey uu ka soo baxay haddana baalkii kale ee imtixaanka ayaa lagu imtixaamay oo ahaa inuu nebigaasi calayhi salaam uu ka gudbo dhanka kale ama imtixaanka qeybtiisa kale oo ahayd in la tuso faqrinimada iyo caafimaad darrada si markaa uu tusaale nool ugu noqdo dhammaan dadka bani aadamka nebiga waa la imtixaamay hal mar baa waxaa dhintay carruurtiisii iyo ubadkiisii oo maalinba loo soo sheegayay hebel bay ka baxday ama hebel baa dhintay ama hebel baa ay dab ku qabsadeen meel halkaasoo dabayli ku habsatay xoolihiisiibuu waayi geel iyo adhi iyo lo dhammaantood dadkii u adeegaya waa dhinteen beerihii way gubteen hal mar baa gebigeediiba ay meeshii isu beddeshay dukum daakum masiibo weyn baa asiibtay nebiga ilaahay ee nebi ayuub calayhi salaam waxaa keliya soo hadhay isaga oo ah nebi ayuub iyo haweenaydiisii xaaskii uu qabay oo magaceeda culummada qaar ay dhahaan liya ayaa la odhan jiray liya qolo kalena ay dhahaan maye raxma ayaa la odhan jiray calaa kulli xaal magaceedu saxa lama hayo laakiin sida loo badan yahay waxaa la dhahdaa liya bintu mansha ibnu yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim alkhaliil oo waxay halkaa ka gelaysaa markaa nebiyadii wanaagsanaaye nebi yuusuf calayhi salaam ayaa markaa awow u noqonay markaa gabadh wanaagsan bay iyaduna ahayd oo daahirado cafiifada nebigaas markii dhibtii badan ay qabsatay ee dhibkaasi ay ku habsatay ayaa haddana waxa u raacday inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo rogay xanuun ama cudur ka mid a cudurradaas halista ahaa cudurkaa waxaa la dhahdaa wuxuu ahaa cudurradan jidhka bini aadamka finanka ama cambaarooyinka ka soo saaray jidhka ee qofkii uu isxoqayo ee qofka jidhkiisii ama qaarkiisii uu dhimanayo walow xataa culammada qaar ay dhahaan heer buu gaadhay nebigaasi ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye in uu yacni hilibkiisa qaar ay soo dhicdhici jireen oo maqaarkii sareba uu soo dhacay
oo uu ahaa gebigiisuba lafo iyo waxoogaa in yaroo wax yaroo laftaa saaran yacni sidii u caatuubay ama uu u dhuubtay oo sidoo kalena ay ku dhufatay maxay faalig ama baralays u noqday bukaan jiif ah oo dhulka yaalla oo jidhkiisa meel nabad qabta aanay jirin dibnihiisaas iyo carabkaas iyo qalbigiisa mooyaane marka haweenaydii dhib badan baa iyada laftigeeda la soo dariistay odaygeedii waa xanuustay carruurteedii way dhinteen dhammaantood waxay hadda ka hor ahayd gabadh xoolo leh sayidad ah marwe ah lahayd dad u adeega addoommo dumar jaariyada ah rag u adeegi jiray oo howlaha ay markaa u baahato u soo qaban jiray laakiin iminka waa dani ku baddaye iyadiiba markaa hawshii oo dhan ay kusoo farabaxsatay gabadhan markaa haweenaydan wanaagsan waxay bilowday markaa in ay shaqayso hadda iyadoo da' joogta inay hadda bal shaqayso hadday shaqo soo heli karayso marka guryaha dadkii kale ayay guryahooda ku garaacday iyadoo doonaysa markaa inay shaqadan jaariyadda ama khaadimad ay u noqoto oo bal markaa guryaha ay u adeegto oo wuxun ay ka soo dhiciso markaa cuntadii iyo cabitaankii bal markaa iyada iyo odaygeeda ay cabbayeen ama ay cunayeen muddo ayay ku waday oo ay shaqaynaysay waayo gabadha hadda shaqaynaysa waa gabadhii sayidadda ahayd waa gabadhii marwada ahayd waa gabadhii ninkeedu xoolaha lahaa waa gabadhii ninkeedu nebiga uu ahaa ee ilaahay u xoolaa badan iyo ubadka badan uu siiyayo beeraha waaweyn ayaa haddana subxaan allah adduunyadu bal u fiirso dhanka kale ayay isu rogtay ayaa waxay ku qasabtay in ay khidmayso oo ay jaariyayso oo ay haween canaananaya oo wax ka sheegaya shaqadeeda iyo hawsheeda ay u tafaxaydato oo ay ka shaqayso shaqada noocaas si ay markaa ay u diyaariso ugu yaraan wixii ay quudan lahaayeen haweenaydani muddo ayay ku jirta markii dambe ayaa nebi ayuub calayhi salaam waxaynu naqaanaa inuu xanuunkii ku batay oo xitaa dadkii kale marka laga reebo haweenaydan mooyaane dadkii kale ehelkiisa ahaa ay ka yaaceen oo ay ka ordeen oo ay ka firdhadeen ayagoo markaa shaydaanku qalbigooda ugu sheekeeyey inuu nebi ayuub calayhi salaam uu dembiye galay oo lagu ciqaabay oo cawaaqib xuma ay ku dhacday walciyaadu billaah siday sheegayaan inkaar baa kugu dhacday bay lahaayeen oo xitaa arrintaasi ay gaadhay markii ugu dambaysay dhowr nin ama 2 nin oo ehelkiisa ama walaaladiisa la dhaho ayay ahaayeen marka maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebi ayuub wuxuu maqlay calayhi salaam iyadoo markaa 2 nin ay wada sheekaysanayaan oo ay leeyihiin nebi ayuub waxa sidan loogu galay waa ciqaab weeye iyo inkaar iyo waxa ku dhacday habaar uu shaqaysto waa dembiyo subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwwata illa billah erayada markaa sida u qallafsanee sida u adag ruuxa bukaanka ah lagu dhahayo yacni dhaawac weyn ayay qalbigiisa ku keenaysa iska dhaaf xataa qof mu'min ah oo nebi ah oo saalix ah oo aan dembiba gelin bale ajar badan shaqaysta iyo xasanaad badan oo ilaahay uu imtixaamay ayaaba ka dhibtoonaya bal hadda xisaabi oo qiyaas qof kale oo isaga laftigiisu xitaa hadduu dana dembiye galay oo bukaan jiifa haddii erayada noocaas aad ku tidhaahdid muxuu dareemay waa waxaad loola yaabo waa waxaad yaad looga naxo xanuun ilaahay uu keenay inaad markaa dadkii ama qofkii lagu canaanto oo la dhaho isaga ayaa isugu wacan subxaan allah calaa kulli xaal haweenaydani way la dadaash nebi ayuub bay calayhi salaam waxay ku tidhi nebi ilaahay baad nin wanaagsan baad rasiid wanaagsan baad ilaahay agtiisa ku leedahay akoon wanaagsan baad ilaahay agtiisa ku leedahay ilaahay ducada aad baridid ilaahay uu ka aqbalayahay meesha aynu ka kacnay ilaahay bari subxaan allah laa ilaaha ila allah oo markaa alla ha ku daweeyo oo dee farash khayr qaba alla ha kuu furo ee sidaa ilaahay ka bari ba ku tidhi wuxuu dhahay nebi ayuub calayhi salaam ma xasuusataa imise sannadood ayaynu nolol barwaaqo ah oo bashbash iyo nimco ah aynu ku noolayn waxay tidhi 70 sannadood
wuxuu yidhi haddaba 70 sannadood oo kale ayaan sugayaa waanu samrayaanu dulqaadanayaa dhibta iyo haysata markaa subxaan allah. muddo ayay socotay ilaa iyo lagu qiyaaso 18 sannadood. xadiiskii nebiga wuxuu tilmaamayay 18 sano, yacni 18 sannadood buu xanuunkaa ula jiifay oo dadkii ka yaaceen. laa xawla walaa quwata ilaa billah. marka haweenaydan oo keliya ayaa u adeegaysay. ugu dambayn islaantii way weynaatay, way tamar beesh, way shaqayn kari weyday. dadkii baa eriyey oo caydhiyey, u diiday markaa inay shaqayso. xagee ka keenaysaa markaa wax lagu quuto? maxay quudanayaan? ayada ayaa kolleyba shaqshaqaynaysay oo ordaysay, ayadina waa tamar yaraatay. subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ilaa billah. adigu calaa kulli xaal markii dadkii ama guryihii ay dadkii u diideen inay gasho ayaa waxaa dhacday in ay timaheedii, yacni madaxeeda timaheedii intay tidacdo oo ay dabto, markaa ay qayb ka mida goyso, kadibna ay suuqa ku iibiso. oo waxaa loo isticmaali jiray timaha sida xadhigga, oo waa la soohi jiray oo xadhig baa loo isticmaali jiray. oo ama shakaalkan faraska ha laga dhigo, ama xadhig kaloo wax lagu xidhayo ama lagu suntayo ha laga dhigo. xadhig ahaan baa waqtigaa loo adeegsan jiray. dabadeedna cunta ayay kusoo iibisay. odaygeedii bay u keentay. nebi ayuub waa shakiyey calayhi salaam, xoolahan xagad ka keentay? sawtii lagu diiday inaad shaqaysid, cuntadan xagad ka keentay? subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ilaa billah. adigu umay warramin. qaybtii labaad ayay maalintii dambena ay goysay oo ay tidicday. markii ay dabtay ee ay soohday bay iibisay tiina. subxaan allah. markaasuu nebi ayuub weydiiyey calayhi salaam oo wuxuu ku dhahay, xaggee baad ka keentay xoolaha kan? kadibna khamaarkeedii madaxay ku sidatay iyo xijaabkeediibay ka qaaday. waxay tustay markaa inay timaheedii goysay oo timihii markaa ay dhakadiiba xiran tahay. subxaan allah. markaasuu nebi ayuub calayhi salaam ilaahay uu baryay subxaanahu wa tacaala. waa goorma? waa 18 sannadood kadib markay dhibtaasi asiibtay ee ay taabatay. oo qaab nooceeba buu u baryaa rabbigii subxaanahu wa tacaala. wuxuu u baryay siday uu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa inooga war. wa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya addurru wa anta arxamu arraaximiin. nebi ayuubna wuxuu u baaqay oo u yeedhay rabbigii subxaanahu wa tacaala isagoo leh annii massaniya addurru, ilaahayo waxay taabtay dhibtii buu yidhi. wa anta arxamu arraaximiin, adiguna waxaad tahay ka u naxariista ee ugu naxariista badan, una naxariista dadka isu naxariista. subxaan allah. alle muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, faاstajabnaa lah fakashafnaa maa bihi min dur. waa ka ajiibnay ducadiisii nebiga saalixa ah ee wanaagsan ee sabuurka ah ee sabray ee u dulqaatay dhibtii badnayd ee korkiisa la saaray. fakashafnaa maa bihi min dur, waan ka dulqaadnoo ka kashifnay buu yidhi rabbi subxaana wa tacaala dhibkii haystay. wa aataynaahu ahlahu wamidlahum macahum raxmatan min cindina wadikra lilcaabidiin. rabbigeen wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, waxaanu siinay ehelkiisii iyo ehelkiisii qayb in la mid ah oo midligeed ama iyagii la mid ah. raxmatan min cindina, taasina waxay ahayd buu rabbigeen leeyahay naxariis xagga iyaga ka ahaatay iyo xusid la xusaya dadka caabidiinta ayuu rabbigeen yidhi subxaanahu wa tacaala. meel kale alle muxuu ku yidhi fi suurati saad, wadkur cabdanaa ayuuba id naadaa rabbahu annii massaniya ashaytaanu binusbin wacadaab. waxaad xustaa rasuulkii ilaahayow addoonkayagii nebi ayuub markuu u dhawaaqay xagga rabbigii oo uu leeyahay, rabbiyo waxa i taabtay shaytaankii ayaa dhib iyo cadibaad igu taabtay. oo waxaa la soo arooriyaa qisooyin in shaytaanka laftigiisu uu u iman jiray nebi ayuub calayhi salaam oo uu dhihi jiray, haddii aad nebi tahay ama aad saalix tahay, ilaahay sidan kuumuu gelayn.
oo uu ku kor yeeli lahaa oo dhibta tan yacni laguguma sallidi lahayn oo kumay asiibi lahayn. qisas fara badanna halkan waa la soo arooriya oo shaydaanku uu isku dayay markaa in uu nebiga wanaagsan ee saalixa ah ee wanaagsan inuu jar habaabiyo. laakiin nin ilaahay ilaashanayo oo qalbigiisu nool yahay oo carabkiisuna nool yahay oo uu rabbigii ku xusaayo subxaan allah, yacni nin ay wax ka qaadayaan may ahayn. marka rabbigiibuu beri. aayaddii hore wuxuu yidhi ilaahu dhibtii bay taabatay, tanna wuxuu leeyahay ilow shaydaan bay taabtay oo dhib igu taabtay. ilaahay subxaana wa tacaala waa u waxyoodi oo waa laga dulqaaday markaa dhibtii haysatay. urkud birijlika haada muqtasilun baaridun wa sharaab. lugtaada ku dhufa dhulka, kaasi waa biyo aad ku qubaysanaysid oo qabow iyo cabbitaan aad cabbaysid. marka nebi ayuub calayhi salaam waxaa la faray inuu lugtiisa ku dhufto dhulka, oo markaa waxaa soo burqamay il biyo ah ayaa furantay, ishii buu ku qubaystay. ilaahay subxaanahu wa tacaala cudurkii dusha sare ka hayay waa kaga dulqaaday, waa cabbay. ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunkii xagga hoose jidhka waa kaga dulqaaday. wuxuu noqday nin dhallinyaro xooga oo ilaahay uu caafimaad siiyey oo sixo wanaagsan ilaahay uu siiyey. marka haweenaydii wanaagsanayd ee xaaskii nebi ayuub ayaa soo noqotay. marka way maqneed markaa nebi ayuub calayhi salaam markii ilaahay subxaana wa tacaala u naxariistay uu ka dulqaaday cudurkii hayay iyo dhibtii. haweenaydii ayadoo markaa cunto sida ayaa waxay aragtay wiil dhallinyaro ah, nin dhallinyaro ah oo fadhiya guriga. waxay tidhi ilaahay khayra ku siiyee, ma aragtay nin la odhan jiray ayuub, nebigii samri jiray ama ay dhibtu haysatee la imtixaamay. dabadeedna nebi ayuub wuxuu yidhi calayhi salaam, nebi ayuub waa aniga. ayadu markaa haweenaydaasi waxay u cabsanaysay odaygeed, oo ay uga cabsanaysay maxay? de bahallo, ma libaax baa cunay, ma ay baa cunay, ma mas baa cunay. qofay ka maqanayd oo xanuunsanayo bukaan jiifa subxaan allah, oo dadkii kale xitaa ay ka yaaceen oo ay dhaheen annagu ma daryeelayno. midda kalena ay ka quusteen 18 sannadood dulyaal ah, sariiryaal ah, aan isqaadi kareen oo baaralays ah. subxaan allah, laa ilaaha ila allah. markaa markii suu wuxuu ku yidhi waxaan ahay nebi ayuub, way u qaadan weyda, way yaabtay oo way cajabtay oo way amakaagtay. markii dambuu isu sharaxay ayay yaqiinsatay inuu yahay nebi ayuub calayhi salaam. sidaasaanay markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu naxariistay. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, wawahabnaa lahu ahlah, waxaanu u hibaynay ehelkiisi, wa midlahum macahum, iyo ehelkiisii mid kale oo la jira. culammadu waxay leeyihiin markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dulqaaday xanuunkii ayaa wuxuu u soo nooleeyey carruurtii uu dhalay, iyo carruur la midoo kalena waa siiyo hibe ahaan, isagoon ilaahayba weydiisan. hibadu waa maxay? waa waxaanad aanad weydiisanin ruux, oo markaa lagu hibeeyo hadyad ahaan lagu siiyo. subxaan allah. ayaa markaa ilaahay subxaana wa tacaala u hibeeyey hadyad ahaan uu siiyo ubadkii iyo ubad kaloo la mida. culammada kalena ay dhahaan maye, ubadkiisii ayaa alle subxaana wa tacaala jannada u geey, kuwo kaloo adduunyadana waa sii. maalintii nebi ayuub calayhi salaam ay haweenaydiisu ay timaha iska xeertay ee ay iib geysay timaheedii, ayuu nadiray nebi ayuub calayhi salaam oo uu ku yidhi, haddaan caafimaado 100 jeedal ah ayaan kaa jaray. subxaan allah. nebi ayuub calayhi salaam maadaama uu dhaartay oo uu nadaray oo uu ku nadaray markaa inuu haweenaydiisii liya inuu ka jaro markaa 100 jeedalka, haddana ilaahay subxaana wa tacaala maadaama ay haweenaydaas ay ahayd gabadh wanaagsan oo u samirtay odaygeedii, ilaahay waa ka dulqaaday in markaa nabarrada lagu dhufto. nadarkiina waa oofiyey nebi ayuub, laakiin qaab kale ayuu ku oofiyey. alle muxuu yidhi, wakhud biyadika dagtan fadrib bihi walaa taxnas
إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وحال لي سبحانه وتعالى دارت هذه سيادو فلسيد قاد حرمه حرق يعني أما حرمه ومركا كله فو هل جادل سيداسي كاغا قديسا نذركي أد نذرتي أما أرنتي أدكو دارتات لون أوفيني marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka fogeeyey haweenaydii wanaagsanayd in markaa jeedalkaasi uu ku dhaco uu ninkeedu uu nadiray dee nebi ayuub calayhi salaam taasina waxay ka mid ahayd gabdhihii saalixiinta ahaa ay saalixaadka ahee wanaagsanaa ee ku dayashada mudan ee u samirtay dhibtii soo gaadhay odaygeeda iyo dhibtii soo gaadhay ehelkeeda iyo dhibtii soo gaadhay xoolahoodii 18 sannadood subxaanaka rabbana laa xawla walaa quwata ilaa billah samirka intaa la aqbalo fiirsada hal sano ayaynu samri la'nahay 2 sano 3 sannadood qofka samra ayaa baynu bixinaa maxay ninkaasi waa tusaale iyo mahbaaba laga dhigaaba hebelkaasi intaasoo sannadood buu xanuunsanayay ama ay dhib haysatay uu samrayo subxaanallah iyagu 18 sannadood ayay u samrayeen ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in dadka muslimiinta ahee dhibban uu dhibta ka dulqaado ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala in waddankeenna abaaro badan baa laga soo sheegayaa ilaahay uu ka dulqaado abaaraha ilaahay baynu weydiisanaynaa inta xanuunsanaysa inuu xanuunka ugu bedelo caafimaad iyo sixo wanaagsan ilaahay baynu weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inagana ina hanuuniyo dembigeennana dhaafo dembiga waalidkeenna dhaafo dadka wanaagsan ee muttaqiinta ana uu naga yeelo hada wallahu aclam wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh